cadeeyo dan shakhsiyadeed annagu ka yeeli mayno ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay il gaar ah ku fiiriya hana ogolaanina isbedelkaana waa in laga wada qayb qaato haddii uu jiro isbedel joogto ah cid ku maalgashanaysa ma laha wax qabadku naftigiisa waa saa sheegtay waxaa laga yaabaa dadkii yimaada inay koow ka bilaabaan marka isbedelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dib u dhaca. Assalaamu calaykum kusoo dhawaada 7 News Soomaaliya haddii ay tahay markaagii kugu horeysay subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u heshid wararkeena iyo macluumaadkeena ugu dambeeyay mahadsanid. Hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa sheegtay Khamiistii aynu soo dhaafnay in ay u gudbisay dacwad xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taas oo ujeedkeedu yahay in dacwad lagu soo ogo wariyaha VOA-da Haruun Macruuf waana xeelad kale oo lagu cabsigelinayo laguna caburinayo wariyaasha iyo codadka loo arko in ay khatar ku yihiin maamulka madaxweyne Farmaajo. Hay'adda NISA ayaa lugaha la sii galaysa xeelad kale una sii dhawaanaysa inay siyaasad ahaan ku milanto maamulka nabad iyo nolol iyadoo horaantii bishan ku tiri hadal ay soo dhigtay barteeda Twitterka inay baaritaan ku hayso wariyaha rugcadaaga ah waxay ku sheegtay in uu khatar ku yahay amniga qaranka. Kalitaliyaasha dunida ayaa u arka wax dhameystiran amniga qaranka si ay u caburiyaan hufnaanta cambaareynta iyo dadaalada lagula xisaabtamayo. Sheegashada hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa imaanaysa xilli ay dacwad kale ku socoto wariye ka tirsan idaacadda Goobjoog oo lagu magacaabo Cabdicasiis Axmed Gurbiye taas oo sharcigii caburinta ku dhisnaa ee gumeystuhu meel mariyay dawladdii ugu horeysay ee xorriyadda. Saxafiyiin badan oo ku kala sugan dunida dacaladeeda ayaa culayso ka soo wajaheen maamulka madaxweyne Farmaajo. Haruun Macruuf waa wariye xirfadle ah kaasoo shaqadiisa lagu kalsoon yahay wuxuu shakhsiyan abuuray muddo sanado ah ila wareed lagu kalsoon yahay shaqadiisana ka dhigtay mid tixraac ay ka dhigtaan saxaafadda gudaha iyo tan dibadda iyo weliba aqoon-yahanada dhanka amniga khilaafyada iyo arrimaha la xiriira ee bariga iyo geeska gobolka Afrika. buuggiisa xogta badan xambaarsan ee Inside Al-Shabaab taariikhda qarsoon ee Al-Qaacida garabka ugu awoodda badan ayaa cadeyn u ah in uu yahay xirfadle iyo qoraa. Cadeyn uma baahna shaqada xirfadda ka muuqata ee Haruun Macruuf oo ay ka mid tahay barnaamijka galka baarista kaas oo qodax jirka ugu mudan ku noqotay shakhsiyaad badan oo Soomaaliya ku sugan iyadoo si hoose baaritaan loogu sameeyo dhaqankooda maamul ee arrimaha shacabka. La yaab ma leh inay soo yaaciyeen canaasiir shaqadoodu tahay in ay dabagal ku sameeyaan Macruuf oo ay caayaan isaga iyo qof kasta oo maskax fiyow leh. ilo ku dhow wariyaha ayaa u cadeeyay 7 News Soomaaliya tuhunka ah laakiin waa isku dayo lagu cabsigelinayo lana doonayo in lagu sumcadilo. Cambaareynta waa qayb ka mid ah geedi socodka dimuqraadiyadda. Safiirka Midowga Yurub Nicholas ayaa u sheegay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre talaadadii digniin ah in ay Soomaaliya wajahayso safmar dhanka helista xorriyadda hadalka ah. Ururo badan iyo shakhsiyaad jooga gudaha iyo caalamka ayaa farta ku guday dhaqanka madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ay uga falceliyaan wax ay u arkaan tabin aysan ku qanacsanayn. Waraaq loo diray madaxweyne Farmaajo ayaa The New York City ugu baaqday in dawladda Soomaaliya ay joojiso rabshadaha ka dhanka ah saxafiyiinta isla markaana ay dhowrto xuquuqda muwaadiniinta ay u leeyihiin in ay si xor ah u hadlaan. Dawladda Soomaaliya waa in ay joojisaa xarigeeda sharci darrada ah oo ay ku hayso saxafiyiinta, weerarada ay ku hayso wariyaasha iyo burburinta xarumaha warbaahinta ayay tiri. Hay'adan isku taga ururada u dooda saxafiyiinta waxay xuseen in badankood xariga iyo weerarada ka dhanka ah saxafiyiinta ay dhaceen iyadoo lala xiriirinayo hadallo dawladda ku sheegtay in ay khatar ku yihiin. Ma jirto dawlad aan lahayn mucaarad. Thomas Jefferson madaxweynihii saddexaad ee dalka Mareykanka ayaa yiri haddii ujeedooyinku yihiin kuwa wanaagsan ma aha in laga cabsado cambaareynta. nacaybka nabad iyo nolol ee cambaareynta wuxuu ka dhan yahay isbedelkii iyo muuqaalkii taariikhiga ahaa tan iyo bishii Febraayo 2017 waxay u muuqataa in dawladda oo ku timid aaminaadda shacabka Soomaaliyeed ay maanta la dagaalayso cambaareen iyadoo u maraysa laamaha ammaanka qoraysana ciidan ka howlgala baraha bulshada oo dadka caaya isla markaana baaritaan ku sameeya xogaha laga baahiyo dawladda. wax u muuqday waqtiyo mugdi ah oo ka soo fool lahaa dimuqraadiyadda Soomaaliya. maamulka nabad iyo nolol waxay weerar ku qaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya 2017 iyagoo adeegsanaya awood iyo lacag si meesha looga saaro kaalinta indha-indhaynta baarlamaanka ee laanta fulinta iyo dhammaan waxyaabaha kale ee qaranka. tani waxay keentay in si qasab ah xilka looga qaado gudoomiyihii hore ee aqalka hoose Maxamed Cismaan Jawaari iyo in golaha wasiirada laga dhigo xubno xildhibaano ah si ay difaac ugu noqdaan dawladda marka ay yimaadaan isku dayo lagula xisaabtamayo dawladda. dhamaadkii 2017 baarlamaanka federaalka waxa uu ahaa mid gacanta ugu jira laanta fulinta marka laga reebo tiro yar oo xildhibaano mucaarad ah si ay u xisaabtamaan dawladda. badankood xildhibaanada mucaaradka ah iyo siyaasiyiinta aan ku jirin baarlamaanka waxay cabsigelin ku hayay laamaha ammaanka. dawladda waxay weerar abaabulan ku qaaday gudoomiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur bishii December 2017 taas oo sababtay geerida 4 ka mid ah ilaaladiisa. weerarkaas la mid ah waxaa lagu qaaday hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waana tusaalooyinka isku dayada qaldan ee Farmaajo ku doonayo in uu
uu ku aamusiyo qof kasta oo dhaliila dowladiisa. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Khayre waxaa daacad ka ah inay yihiin dad doonaya in dalka hal meel laga maamulo, aadna u neceb nidaamka federalismka. Tusaalooyinka arrimaha muujinaya isku dayigooda ay ku doonayaan in ay awoodda dalka hantaan iyagoo aan haysan cod kale oo bedil u noqon kara. Labaduba waxay abuureen oo dejiyeen qorshe lagu qalqalgelinayo dowlad goboleedyada si ay ugu dambeyn isku dhiibaan. Laga bilaabo Galmudug ilaa Koonfur Galbeed, Puntland ilaa Jubbaland waxaa gaaray dagaalka dowladda federaal iyagoo iibsanaya xildhibaano dowlad goboleed, gacanta ku qabtaan doorashooyinka isla markaasna ay geystaan qofkii ay la rabaan iyagoo u maraya dollar. Dowlad goboleedyada diida dollarka waa in ay u diyaar garoobaan awood military sida cadeynta u ah doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo ay dowladda federaalka faragelin ku samaysay. Maamul ayay ka samaysay Koonfur Galbeed iyadoo dowladdu adeegsanaysa ciidamada Itoobiya, waxaana ku daatay dhiig. Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay intii lagu guda jiray doorashooyinka ka dhacay Koonfur Galbeed bishii December 2018. Dollarka iyo tasiilaadka kale ee dowladda ayaa lagu iibsaday Galmudug sanadkan. Sanadkii 2020 wuxuu astaan u yahay dhamaadka maamulka nabad iyo nolol, waana sidoo kale sanadka safiirka Midowga Yurub ku tilmaamay safmarka xorriyadda hadalka, qorsheynta afkaarta dadweynaha, maareynta qulqulka xogta iyo ciqaabta waa tilaabooyinka kalitaliska ku guuleysto doorashada. Xurnimo warbaahineed iyo saxafiyiin Soomaaliyeed ayaa dhawaanahan cadaadis kala kulmayay dowladda iyagoo adeegsanaya xarig sharci darro ah, cabsigelin iyo eedeyn been abuur ah. Laga bilaabo xarigii wariyaha Goobjoog Media ilaa iyo eedeymaha tuunka ah ee ka dhanka ah Haaruun Macruuf iyo amarkii Koonfur Galbeed ay ku mamnuucday lahjada barwaaniga. Dhammaan waxay muujinayaan sida dowladda ay u doonayso in ay u aamusiso saxafiyiinta oo dhan. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxay ahayd in ay 10 ama 2 cashir ka bartaan ra'iisul wasaarihii UK ee ku soo beegmay marxaladii dagaalka Winston Churchill. Cambaareyntuna ma ahan mid la isku wada raaci karo, laakiin waa muhiim. Waxay fulisaa isla shaqada sida jirku u wada dareemo xanuunka. Sidoo kale xildhibaanad Ilhaan Cumar oo Koongareeska Mareykanka ku matasha Minnesota ayaa qoraal ay soo saartay ku difaacday xorriyadda hadalka ee Soomaaliya iyadoo diiday cabsigelinta dowladda federaal ku hayso wariye Haaruun Macruuf iyo xariga ay u geysatay wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye. Waxa uu qoraalkan daba socdaa kadib markii dowladda federaalka ay wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf ku sheegtay in uu khatar ku yahay amniga qaranka. Shaqadayda guddiga arrimaha dibadda ee aan xubinta ka ahay waxaa lafdhabar u ah siyaasadda difaacidda xorriyatul qowlka, haddii ay tahay dalbashada isla xisaabtanka dilkii Jamaal Khashoggi, u doodidda in la sii daayo wariyaasha la xiray, xaqa saxafiyiinta u leeyihiin in ay ka hadlaan qadiyadaha ka dhaca gudaha dalkooda. Cabsi la'aan kama reebayo in saxaafadda xorta ah ay aasaas u tahay dimuqraadiyad furan. Ilhaan Cumar oo sii hadlaysa waxa ay tiri ololaha cabsigelinta ee nisa ku hayso Haaruun Macruuf waa mid welwel leh marka lagu daro xarigii wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye 14 Abriil loo xiray shaqo uu ka hayay COVID-19 ee Soomaaliya waxay ka mid tahay ku tumashada xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah. Ugu dambeyntii xildhibaanad Ilhaan Cumar waxay dowladda federaalka ugu baaqday in ay joojiso waxa ay wado. Waxa ay dowladda wax badan ka qabatay xuquuqda iyo furfurnaanta, waxaan garab istaagnay deen laga fududeeyay iyo arrimo kale. Dhibka cabsigelinta iyo xariga loo geysanayo saxafiyiinta ay ku jiraan Haaruun iyo Cabdicasiis waxa ay burburinaysaa horumarkaas. Waxaan ugu baaqayaa dowladda inay si degdeg ah u joojiso weerarada ka dhanka ah xorriyadda hadalka iyo midda saxaafadda. Hadalka xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa imaanaya iyadoo ay dowladda Soomaaliya ay cadaadis xoogan sanadkan saartay wariyaasha Soomaaliyeed iyadoo dagaal cad la gashay xorriyadda hadalka iyo helista macluumaadka, isla markaana cagajugleyn iyo xarig xal uga dhigtay wariyaashii ugu firfircoonaa dalka.